kulanti wacan dhamaantiinba ku soo dhawaada barta channelka Naxariis IDB Camp maanta waxaan eegi doonaa qodobo xasaasi ah oo gaagaaban marka hore haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar muuqaalkan like ku qabo waayo wax dhib kuugu ma hayso anaga ay dhiirgelin noo tahay qof walba oo muuqaalkan la garay waxaan alla eebweyne uga baryayaa inuu Ilaahay amurtiisa saalo hadduu yahay guurdoon inuu Ilaahay guur khayr qaba siiyo hadduu yahay qof awlaadona inuu Ilaahay awlaad baari ah siiyo حاسدك وحن لين هاي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح ولقى بهوك يخساره أيكون ذنبه هاي أذا سما فلكة وحلقة عصانة يعني إذا كان وحلا سوقاران إذا كان دن يرتاح أيان هاي سنين بيوكفلن صدق له هوي أما جوري kulantii waan sidaas horay u soo maqasheenba waxaan ka hadli doonaa kaamamka barakacayaasha oo wili cabashadoodii ay soo laba kaclaysay maxay ka yiraahdeen gudida kaamamka iyo dadkii ka hadlay markii ay xaalad sidaan oo kale la soo dirsatay barnaamijka ay qayb ka yihiin maama yareeyay Naasir Salaad waa kaamka horjoogaha gaalkacyo waxay ka warantay kaamkan cabashadiisa iyo xaaladiisa hay-adaha samafalka waxaa laga codsanayaa inay dadkan wax la soo gaaraan dadkan dan yarta ah ayaan haysanin biyo ku filan sidoo kale hooy ama guri sidoo kale horjoogaha kaamka Naxariis oo Maxamed Yuusuf ayaa nooga waramay xaaladda kaamka Naxariis IDB Camp iyo xaaladiisa sida ay wax marayaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا هاي هردوها كام كان حريص كنتي وحن هذا يا إنه كام كان وباهني هاي وحول بو أي هاي التأسو هذا أهله معون يوحكله ولي ما أيسن هيفتن كنا كام كان وحني هنا وطن ما مدن ومر لبعض صور رجال علنيسة وحي كورنتي حالة كام كان وحنا لحد جنتهاي كام كان معروف xaafada Siigaalo waxayna ka warantay xaaladda kaamka markaan waynu aad u baahanay misuma baahni waxaan rabnaa inaan nolol siiyo baahidana laaga caawiyo iskool nolol siiyo dugsi nolol siiyo wax alla waxaan tabanayna mara qanaac adduunka qalina wixii idin ku xatun Ilaahay asna kaamkana waa kaam macruuf kaamkana waa kaam macruuf ilaahan sugayna idinkan idin sugayna barnaamijku waxa farsameynaya anigoo Maxamed online barnaamijkan kiisaha inta ka kulmayno waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo